xaliimadii ugu horeysay oo Faarax dartiis inta wadankeedii ugu imaada rabta in uu ku guursado wadankiisa isagana balantii uga baxay waa la yaabka sanadkan bilowga ah ee 2025 intaan ugu dagalin warbixintan xiisaha badan hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato waxaan ka codsanaynaa in aad nagu soo biirto maasanid haweeney lagu magacaabo Oneja oo 33 jir ah ayaa hadalhaynteeda waxa ay qabsatay caalamka gaar ahaan bulshada dalka Pakistan kadib markii ay nin dartiisa u imaaday Pakistan diidayna in ay wadankaasi ka baxdo ilaa ninkaasi loo guuriyo haweeneydan oo 33 jir ah ayaa waxa ay ka tagtay dalkeedii Mareykanka waxa ayna gaartay dalka Pakistan si ay u soo aragto oo ay isku soo guursadaan wiil ay xiriir la lahayd muddo dhowr sanadood ah haweeneydan 33 jirta ah Oneja lagu magacaabo iyo Axmed ayaa waxay iska barteen barta bulshada ee Facebook iyadoo ugu dambeyn Oneja go'aansatay in ay gaarto dalka Pakistan oo ninkaasi uu ka soo jeedo si ay halkaasi ugu aqal galaan oo ay nolol ugu dhistaan Oneja ayaa markii ay ka degtay dalka Pakistan waxa ka dhuuntay ninkii ay u tagtay ee la yiraahdo Axmed shir jaraa'id oo ay qabatay ayaa waxa ay sheegtay in aysan wadankan ka bixinin ilaa inta laga keenayo wiilkan lagu magacaabo Axmed oo waliba loo guuriyo sida ay sheegtay bulshada Pakistan iyo bulshada caalamka oo dhan ayaa ku maadeysanaya haweeneydan waxa ayna diiday in gabi ahaanba ay ka baxdo dalka Pakistan waxa la soo xiriiray haweeneydan safaaradda Mareykanka ee Pakistan waxayna u sheegeen in lacagta qarashka ay ku baxayso ay iyagu bixinayaan si ay wadankeeda ugu laabato balse waa ay diiday oo waxa ay sheegtay in aysan Pakistan ka baxaynin sidoo kale waxa la hadlay madaxda ugu sareysa ee dalka Pakistan waxayna sheegeen in haweeneydan qarashka ku baxaya oo ay ugu laabanayso dalkeedii Mareykanka ay iyagu ka bixinayaan balse sidii si lamid ah waa ay diiday oo waxa ay ku adkeysatay in ay Pakistan dhex joogto waxa ayna sheegtay in loo keeno Axmed si ay isu guursadaan oo waliba loogu daro dhalashada dalka Pakistan in la siiyo haweeneydan shirkeeda jaraa'id markii ay qabatay kadib oo ay diiday in ay ka baxdo maqaaxidii ay fadhisay ayaa waxa isna soo hadlay ninkii dartiisa ay wadankaasi u tagtay ee Axmed la yiraahdo waxa uu na sheegay in haweeneydan uu isagu ku oran dalka Pakistan imowsi ay isku guursadaan waxa uu sheegay in haweeneydan markii ay social media gaar ahaan Facebook ay ka wada hadli jireen ay u soo diri jirtay sawiro gabar qurux badan oo intan ka daayar balse markii ay wadanka timid uu arkay qofkii ay xiriir wadaaga ahaayeen qof ka duwan oo aan u ekeen sidaas daraadeed waxa uu sheegay in qoftan iyadu ay qiyaantay oo uusan hadda dooneynin in uu xiriirkeeda sii wado haweeneydan ayaa maada ka noqotay social media iyo warbaahinta caalamka oo dhan waxa ayna noqotay xaliimadii ugu horeysay ee 2025 nin dartiis inta u soo safarta haddana heli weysa natiijadii ama dhibcihii ay sugaysay oo ah in ay ninkaasi kasbato sheekadan intii aan daawanayay oo aan akhrinayay waxa igu soo dhacday hodan star hadaladeedii 2024 ilaa 2023 dhamaadkeedii ee ahaa Axmed waxa uu ahaa nin fiican Axmed waxa uu ahaa qof jaceylka wax ka yaqaan Axmed waxa uu ahaa nin naxariis badan Axmed taas oo baraha bulshada qabsatay heer la gaaro in ruwaayado laga soo sameeyo magaca Axmedna waxa uu noqday magacii ugu saameynta badnaa sanadkaasi wiilasha Soomaaliyeed qaarkood ayaa waxa ay ka maseereen magaca Axmed maadaama magacaasi Axmed uu noqday magacii ugu saameynta badnaa sanadkii tagay ee 2023 ilaa sanadkii dhamaaday ee 2024 bilowgiisii aynu ku soo laabano sheekadii ku saabsaneyd haweeneyda lagu magacaabo Oneja ee 33 jirka ahayd waxa ay qabatay shir jaraa'id waxa ayna shirkaasi jaraa'id ku sheegtay in Axmed ay ku heshiiyeen in ay Pakistan imaado oo ay halkaasi qoyskiisa u ku baro halkaasi inta ay iska raacaan ay tagaan magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka oo ay halkaasi ku aqal galaan dabadeedna Axmed ay u kaxeyso wadanka Mareykanka magacii Axmed ee labadii sano ee soo dhaafay aad u qabsaday social media gaar ahaan dhanka Soomaalida hadda waxa uu noqday international oo waxa hadal haysa caalamka oo idil